meesha laga imaaday haddaadan garanayn meesha loo socdana ma garanaysid meesha loo socdana ma garanaysid cadowgaaga iyo saaxiibka ma kala garanaysid waa maxay diintaa haysataan islaamnimada aad sheeganaysaan iyadoo bil rabadaan ay tahay ayaa habeen iyo maalin weli waxaa socda meegagii cayda waddankiina iyo dadkiinaba dad xalaala oo islaam inaysan ahayn waxaa idiin caddeynayo qofka kuu imaanayo iyo qofka saaxiibka kula ah ma kala garanaysid soomaali hadday xalaal tahay dadkan soddonkaa sano jiro oo baktiga iyo qashinka iyo xaaraanta iyo wax walba isku darsanayo cunayo ninkan sheega ciilqabahan waynu garanaynaa ninkaane buug ayuu qoray buuggii uu qorayna dadka ugu badnaa uu ku caayay mudulood iyo abgaal iyo majarteen iyo abargidir iyo ogaadeen iyo saaq iyo ahaa laakiin dadku aadka u caayo u bahdile xamar unukaa leh kuwa dhaho xamar unukaa leh goorta yeesheen aniga garan maayo waxay social mediaha langa bounty 5 others qof walba wax uun iska sheeganayo ya qof walba waxbuu iska sheeganaa social media meeshaan adinka iga aqoon badan adinka wax walba garanayo muhiimadda waxay tahay ninkan yuu yahay safiirka maraykanka u fadhiyo magaalada muqdisho nala socotaa inuu yahay 1993 dadkii dagaalkii black hawk down qaybta ka ahaa 1995 dadkii baydhaba joogay ee go'aamada ku gaaray in ay soo noqon doonaan ayagoo intaas ka xoogan maantayna aad arkaysid chapter 7 soomaali lagu handada la leeyahay waa idin kala diraynaa haddaad isku imaan weysaan oo heshiin weysaan marka waxaan oo dhan waa social media iyo bara bulsho iyo waxa la iska sheego iyo ha lagaa sheego waay maahane soomaaliya sida uu sheegay majnuun farmaajo soomaaliya waxay ku jirtaa chapter 7 gacan beesha caalamkay ku jirtaa beesha caalamka maqasho qaniis aragtay gaal aragtay fasahaad aragtay faqsi aragtay isku dir qabil aragtay nacas iyo nin liita lagu isticmaalaya waa kaasaa ninka waxtarka leh maanta dadkiisa iyo dalkiisa u hadli karo u dagaalami karo u doodi karo wax u qaban karo oo mas-uul dowladeed ah waa kaas caawa kasoo dhexel waxaan dhan aad arkaysaan waa jilliin majnuun farmaajo waxaa maanta waardiyeenayo sheekh shariif sheekh axmed muxuu ku waardiyeynaa buuggii uu ku caayay nasiibyadiisa faraciisa uu yiri abgaal iyo mudulood waa dhal Italian waa ninka yiri waa dhal Italian ya waa dhal Italian uu yiri qofkii wato qofkii raba ayay oo maamushay u shaqeynaya aniga ma dhihin markaan runta sheegtid waa la gubana waxa leeyahay reehel una cab yahay reehel ma arki karo daarood ma arki karo mudulood ma arki karo farmaajo buugiisa konton iyo 3 waxaa ku qoran abgaal inay yihiin basaasiin ruufiyaama weligoodna talyaani iyo shisheeye u shaqeynayeen maantayna ninkii shalay wadooyinka lagu burbursanayay hotelada lagu weeraray ayaa maantay inta ugu tagay qadar oo soo wado wuxuu keenay magaalada muqdisho ayuu keenay xasan sheekha wuxuu ugu tagay hadda ninkii noocaas ahaa qadar ugu tagay oo yiri kaale xamar imo dani iga qabo dani kaale iga qabo haye xamar uu keenay xamar markuu keenay isaga lagu soo jeestay sheekh xasan sheekhi keenay xamar isaga ku soo jeestay haye sheekh shariif sheekh axmed ki shalay wallahi thumma wallahi waa ku saarayna kii lahaa maanta asaa wardiina ilaalinayo si farmaaji asaa magaalada muqdisho ku haayo oo wardiina ilaalinayo isaga iyo odawaa iyo masdile iyo way badan rag badan masdile xaadoole waxba yaa la isqarin masdile xaadoole sale cabdulle ثم والله وبالرمضان وانا سوا مانا كلمة بينا كدرين وعرفت فرماجو مشاري قادنا بيلي قادنا العقوة قادة الشيء فيري ضدوا وين يا وحي كلين العقوة قادة الشيء وواحد بوقيسه وكوكور فرماجو وكالشيء قايو ليهي أبقال وللبصاص للروفيان وحي كل شقيستين وشقيان علو يا واركتان مرك حمر ونكاله مركي ليهن باش أبقال
yay ugu dan leeyihiin ma daarood ugu dan leeyihiin masadegi limirifle no dadkay ugu dan leeyihiin you know adinkana ogtiin ilaahayna waa ogyahay afar gudoomiye ayaa gobolka banaadir ku lahayn afar gudoomiye maantana labaan ku leenahay ay maxaa keenay nin abgaala soo ma ahayn ninka farmaajo uu ku yiri cabdicasiis ka bedel ninkaas waxa ku bedeshaa nin oo daarood ku bedel daarood ma lagu bedelay waa la soo wareegay waxaa la yiri yaaqshiid ka soo bedel habargedir haye booska xagga ka qaadateen dhinaca ka qaatay labada bedelba xasan sheekh ayaa habargedir bedelay dhinaca kalena farmaajo ayaa daarood keenay wixii taliye iyo sargaal iyo hormuud wadanka oo dhan waa bedelay wuxuu ka wada dhigay daarood waliba over 35 iyo 40 sideetan sagaashan jiro aa laga wada dhigay hawiyana waxaa la yiri 35 jir ka badan oo hawiye ma arki karaa la yiri hawiye yaryaro maskaxda laga dilay dowladnimo systems lagu qofulay shalay wixii la soo mar hadaadan ogeyn maanta meesha la taaga loo socdo ma ogaan karti buugga farmaajo page-ka 53 oo dhan 4 page mudulood inay basaas yihiin mudulood inay dhal talyaani yihiin mudulood inay dadkooda loo adeegsado aniga ma dhihin farmaajo dhahay buuggiiseen ku qoran tahay waxaa ku soo haray dastuura la isku haystaa dastuurka ay daarodiidan yihiin in la bedelo oo hawiye iyo degil iyo mirifle iyo dir iyo ay leeyihiin hala bedelo maxaa kala socotaa dastuurka yuu dan ugu jiraa waxaan annaga raalli ka ahayn lama samayn karo dastuurka waxa ku qoran soo akhrista kadib aan isweydiino sababta reer gooniya ay u leeyihiin dastuurka Puntland waxaan raalli ka ahayn iyo faroole lama bedeli karo soo dhageysto soo akhrista rabadaan baynu ku jirnaa cid aan qancinayno ma jiro beesha ma jarteen hadday noqoto siyaad barre hadduu noqdo mas-uuladii kale oo ka horreeyay kuwii ka dambeeyey dhammaan Puntland waxaa lagu haystay inay basaasiin ruufyaamo xumaan walba oo dalkaas Soomaaliya loo wado dadka loo soo adeegsado oo farta ku fiiqo meelaha Soomaaliya ay ka jilicsan tahay meelaha laga soo gali karo inay yihiin weligood dal iyo duunyo iyo Soomaali iyo Islaam iyo waxay u qabteen mala waxa faqsi maanta Soomaali u horseeday waxa wadan ka socdo dhan ayaga bilaabay hadday noqoto gaalaysiin hadday noqoto qaniisnimo hadday noqoto cadow keenid shisheeye ruufiyaan wadankiisa nin dad Soomaali ka tarxiilayo qabanayo geenayo cadow u dhiibayo kasoo gudub bil rabadaynu ku jirnaa xaaladda dhabtay runta ka hadal baynu wadnaa wax isku laysiyo iyo meega maahan waxaynu usoo gudbaynaa garowe 2 ayaa waxaa lagu saxiixay Puntland waxaysan raalli ka ahayn dowlad Soomaali ma samayn karto mashruuc walba oo Soomaaliya imaado waa in Puntland iyo dowladda Soomaaliya ay 50-50 u kala qaybsadaan maadaama maamul goboleedyada kale ee PP iyo ciyaal xaafad ay yihiin haye maamul goboleedyada kale awood ma lahan Puntland kaliya ayaa awood leh inta Somaliland ka soo noqonayso shir walba ay dowladda Soomaaliya galayso waa in annaga nagala tashtaa heshiis walba shir walba wax walba safar walba ay dowladda galayso waa inuu shakhsi Puntlandees goobta ku matala oo fadhiya abgaal waxay ahaayeen madaxweyne iyo maxaakimiinana soo martay waxay ahaayeen dadkii ama warqadaas saxiixay waxay ahaayeen dadkii ogolaaday Puntland meeleen fadhin Puntland raalli ka ahaan miyeen Puntland u sii kala carar ya haddaba dastuurka noocaasa oo la yiri gobolka Banaadir annaga haddaan raalli ka ahayn lama samayn karo waa in nagala tashtaa gobolka Banaadir ayaa maanta waxaan maraynaa in muduloodna xabadka ay ka raacdaan xamar u nukaale Puntlandna ay dastuurkooda ku soo qortaan gobolka Banaadir waa in nagala tashtaa Banaadir iyo daarood maxaa iska galay Kismaayo oo dhul hawiye iyo jareerweyne iyo degib mirifle ah ayay daarood gacanta ku dhigeen lagamana hadli karo see Banaadir looga hadlay Banaadir aqligaas ilaahay ha u soo celiyo Sheekh Shariif ninka farmaajo caaw iyo gadabarkiisa maraayo ilaalinayo wardeenayo walaalkiis loo adeegsanayo
waa wax buug isku qoran farmaajo soo akhrista